waxaan waxbarashadeedii hoose iyo dhexeba iyo saraba waxaan ku qaatay magaalada samirka badan ee Muqdisho intaas kadib waxaan safaro oo dibadda aan u aaday dalalka Southern Africa oo aan ku noolaa muddo gaaraysa 10 sano kadib dalka waxaan ku soo laabtay 15 November 2015 kan ku soo laabtay ما شاء الله طبعا سانجا على هذا وحاتها هير جامعات او جبجبه ومريا waxbarashadiisii amir markuu wareysa saan sheegay waxaatahay gudoomiyaha naadiga akhriska iyo qoraalka ee Banaadir oo ah naadi ka dhisan magaalada caasimadda ee Muqdisho badana waxaad qabataan waxaysan yaani maamul ama dawladihiidan ka horeeyay aysan qaban ama aysan isku daynin naadiga hadda aad gudoomiyaad ka tahay bal asaaskiisa muxuu ku bilaabmay waxa asaasay dhalinyaro runtii muujiyay karaankooda iyo muxuu ahaay tood waxa qabadkooda inuu meel gaari karo ayaa sameeyay oo u badan arday badana waxaan ka qayb galay hadaan su'aashu soo laabto barnaamijyo aad qabateen ma sahlana in yaani dhalinyaro la isku keeno oo waliba dhowr boqol oo qof la isku keeno kadibna wax ay ku nastaan oo ay yaani maskax dareenkooda bedel inay meesh kala tagaan process noocaad u martaan inaad dhalinyaradaas aad isku keentaan dadka markaan isku yeerno baraha bulshada ayaan dhigi jirnay waxa laga yaabaa inay timaado 10 qof ama 15 qof ama 20 qof alxamdulillah samir badan kadib iyo dadaal aan muujinay hadda waxaan u mareynaa heer markii aan barnaamijyo aan qabanayno ama bandhigyo aan qabanayno barta media inaan dhigno iska daay xatirta hadaan bulshada aan ku dhaano naadiga Banaadir ayaa barnaamij qabanayo inay dadku ay gaaraan boqolaal iyo kumanaan oo meel ay fadhiistaan aan weyno dad baa waxay leeyihiin waxay sameeyaan list waxa jira dad laga qoro oo la waco waad beeninaysaa inaan liiskaasi dadka laga soo qayb gelinayo aysan jirin xaqiiqda markii aan ka hadlo gudoomiyaha aniga ah muxuu ahayd qof liis intaan qorno oo niraahdo dadku ha yimaadaan ma jirto anaga kaliya barteena aan ku leenahay muxuu ahayd social media yaanu ku soo bandhignaa xilliga aan qabanayno bandhig cid si qaas ah ama si gooniya aan u casuubnaa way jirtaa marka laga reebo madaxda maxaad isku dayn weyseen in maamulka gobolka maadaama magacii gobolka horumarkiisa aad ka qayb qaadanaysaan oo waliba caasimadii ah oo aad jeceshiin inaad gobolka magaciisa aad balaarisaan oo meelo badan aad gaarsiisaan inaad warqad dukumeenti ama codsi aad u qortaan ugu yaraan xitaa maamulka inuu idin dhiirigelin aad ka heshaan sidaan ognahayna gudoomiyaha gobolka xaqiiqan uu la socdaa howlaha naadiga akhriska ee qoraalka Banaadir ay ka wadaan magaalada Muqdisho iyo guud ahaanba dalka hadda saa sheegtay dhawaan waxaad tagteen xarunta ama caasimadda maamul goboleedka Hirshabeelle waxaad ka yeesheen madal oo isla markaasna iyadana naadiga akhrista ama madasha akhriska Hirshabeelle fikirkaas ma idinka intaad isku imaateen xambaaray oo aasaasay mise waa fikir tala la idin soo jeediyay aad ka qayb qaadateen wuxuu ahaa fikir ka imaaday naadiga akhriska ee qoraalka Banaadir oo doonaya inay dhammaan gobolada dalka ka hirgeliyaan xarumo u heelinaya akhriska ee qoraalka dhinaca siyaasadda daan u leexano badana waxa dadku ku dhiirigelisaa يعني سبرة كترجمة يا قف كدرانكيسي وحنبارسين هاي إنه يعني ديرجلين وسميه دانا قلدنا وحاول دم بيدوان سوير عاد جبر عربيد أو وزير أو عاد دلرد كل ديرجلين يصير إن سياسة ده كقب قاتان دولتنا عاد يعني فرصة ضد إلا سياسة كوسي ديرجلين يصير ما صرت قلبه إن يعني حل كان دلرد الصومالية واللي بدأ على بعتني دور جركة وزيرada ay ka mid noqdaan in kasto hadda aanan farkutris lahayn oo tiri intaas oo 20 dhowr sano aan la dhigi karin mislada dawladda kaalinta dhalinyarada ay kaga aadinayeen siyaasaddu ay ka haystaan marka aan leeyahay dhalinyaradu waa inay ka qayb qaataan siyaasadda dalka iyo dib u dhiska dalka macnaheedu waxaan ula jeedaa in dhalinyarada la siiyo fursad muxuu ahaaytood si ay u bedelaan muxuu ahaaytood dalkan Soomaaliya waxa arkaysaa dhalinyaro badan oo runtii magaalada Muqdisho ama guud ahaanba dalka ku nool ayaa waxa ka guuxaya waxyaabo badan oo horumar inta jirto waxay tahay qofka dhalinyarada ah Muqdisho ku barbaaray ama gobolada Soomaaliya ku barbaaray dhamaantood waxay ka wada sameeyeen dagaalada sokay dalka inuu saameeyay haddana waxa lagu kala aragti duwan yahay qofka ka yimaado qurbaha tusaale oo kale 2010 oo kale uu tahriibay wuxuu soo laabtay 2017 ama 2016 adiga wadankii aadan ka tagin
waxaa laga yaabaa dhinaca darajada ama bixinta yani xilalka inuu kaaga sareeyo ama mudnaanta koowaad in isaga la siiyo taasoo lama dhihi kara dhalinyarada dalku ay siin jibinaysaa inay yani siyaasadda ka qayb qaataan labo markii loo fiiriyo anigu waxaan qabaa horta qof walba oo muwaadin Soomaaliyeed ama dibadda ka yimaado ama dalka ku noolaado hadii ay ka go'an tahay inuu asiga dalka wax ka bedelo wuu ka bedeli karaa macnaheedu ma ahan in qofkii la dhaho dibadda ka imaaday kan kale uu ka aqoon badan yahay kana wadanku ku nool yahay ma soo arkin nidaam wax ma bedeli karo qof walba oo Soomaaliya oo muwaadina wuu ka bedeli karaa dalka hadii asiga ay ka go'an tahay inuu horumar ka sameeyo dhawaan saa sheegtay Jowhar tagtay qorshaaga gobolada Soomaaliya oo koonfur oo beedhow ugu horeysa waa rajaynaysaa in naadiga aad gaarsiisaan adigoo naadiga hogaaminaya maxaa ku diidan inaad isku keentid ururada dhalinyarada hadee noqoleed kuwa maamul goboleedyada iyo kuwa waxa ognahay inay jiraan urur dhalinyaro qaran haddana si bal isku khilaafsan yahay dadka qaar way taageersan yihiin qaar way ka soo horjeedaan walow dawladdu ay sheegtay in dhawaan urur lagu midaysan yahay la dhisi doono maxaad uga faa'iideysan weysay inaad isku keentid shir guud u wada qabatid si mustaqbalka dalka uga hadlo waxa naga dhaxeeya gudoomiyahooda waliba waa mid aad iskugu fiicannahay sidoo kale magaalada Gaalkacyo sidoo kale iyadana waxa xiriir badan baa la leenahay beedhaba sidoo kale Kismaayo ilaa gobolada waqooyi sidoo kale dhamaanba waxaan leenahay xiriir dhamaantoodna waxa mar walba aanu ka wada hadalnaa sidii aan u midoobi lahayn iyo muxuu ahaaytood aan dhalinyaro ahaan aan u noqon lahayn dad midaysan oo runtii wax ka bedeli kara hanaanka dalka uu ku jiro gaar ahaan isbariyaaca dhalinyarada waxaa jirta dhalinyaro iyaga naftirkooda sida hubka loo adeegsado ma aha kaliya in dagaal la geeyo ay dagaalamaan kuwa waxaa jira baraha bulshada isticmaalo haddana mucaarad iyo muxaafid u kala safan yihiin kuwaas oo kale maxaad adigu tal ahaan iyo tusaale ahaan u siin lahayd marka annaga ka dhalinyaro ahaan waxaana la habboon inaan horto mar walbo anagu aanan noqon xilligan mucaarad wuu jiraa adduunka mucaarad iyo muxaafid wuu leeyahay laakiin waxa loo baahan yahay xilligan hadda la taagan yahay dhalinyarada Soomaaliyeed in aysan noqonin mucaarad maxaa yeelay dawlad Urdun ayaa noo dhalatay oo noo dadaalayso waxa loo baahan yahay marka mar walbo annaga waxaana looga baahan yahay inaan madaxda dhiiri gelino dawladda muxuu ahaayeeto dhanka taageerada aan kala shaqeeyno adduunka waxba la mucaarada badana waxaa Soomaalida lagu dhaliilay inay yihiin bulsho marka ceebtooda kaliya ay faafiyaan oo wanaaga markaas haday madaxda qabtaan ama haday shacabka qabtaan ba aysan burbuuninin tusaale oo kale markaad maanta aad jeceshahay inaad adeegsatid oo kale Google oo kale inaad raadisid Soomaaliya sawir aad raadisid badana waxaad arkaysaa warbixino aanan yani niyadaada sii dhiseen marka saad sheegtay ma ku muuqataa in Soomaalida xumaantu inay faafiyaan ay u badan yihiin oo wanaagu aad isleedahay way ka gaabiyeen waxa arkaysaa dhalinyaradu markii ay wax dhacaan tusaale markoo qarax dhaco kaleeto isla markiiba waxa arkaysaa dhalinyaradu dhamaantood wada adu qabto saxaafad oo kaamirooyinkoodii waxoodii wato oo raadinaya in ay bulshada ama caalamka u gudbiyaan masiir xun iyo foolxumada ka dhacda meeshaas teeda kale waxa arkaysaa waxyaabo mamnuuc ayaa jiro waxa mamnuuc in qof runtii dhintay u baahan asturaad in inta sawir la dul tago sawirkii laga qaado hadana baraha bulshada meedka wuxuu leeyahay xurmad iyo wuxuu leeyahay karaamo dad marka la sheekaysto kale badana waxay sheegaan in aad qof dhalinyarada u firfircoon haddana qorshayaasha ugu weyn inay ka mid tahay siyaasadda Soomaaliya meel darajo sare kaga soo gali lahayd dad ba mararka qaar waxay sheegaan inaad yani meesha ugu dhow aad u tartamaysaa tahay sida yani kula tartami lahayd ururka dhalinyarada qaranka Soomaaliya gaar ahaan xilka gudoomiyenimo arintaasi maxaad kaga jawaab celin lahayd inaan ka mid noqdo siyaasadda Soomaaliya waan jeclahay laakiin markii hadda aad si u fiiriso xaalad dalka uu ku jiro ama xilliga hadda kale Soomaaliya ay marayso ka aniga ahaan shakhsi ahaanteyda ma ahan inaan hadda muxuu ahaayto aan ku soo biiro saaxadda siyaasadda oo runtii aan ka soo muuqdo waxaan jeclahay aniga markii aan waxbarashadayda inta hadda iyo hata aan dhameysto inaan muxuu ahaayto aan ka qayb qaato dib u dhiska dalka way hadaan kula kaftamo badana markaad soo dhaweynayso marka qaar marka xafladaha oo kale ama adiga oo kale waxa tahay xiriiriye badana dad markaas madasha aan ku sugannahay oo kale ag fadhiya ba waxay aad u dhibsadeen kelmad marka ku dhawaaqdido oo ah
marka qof ku soo dhaweynayso oo gobolada waqooyi ka yimid oo kale jamhuuriyadda Soomaaliland oo kale marka waxaan rabnaa hadalkaas kaftan ahaan bad si aad bulshada bal aad isku yaani aad dhiirigelisid in Soomaaliland ay yaani in la aqoonsado ay mudan tahay horumarka ay sameeyay lagu dayda bad u tiraahdaa ma si kale oo adiga ku talagalo ku gaarbaajiyo sida ognahay annaga waxaan ku soo barbaarnay aan dhalanay dalkii oo burbur ah iyo dalkii oo micnaha kala go'go iyo muxuu ahayd magac u bata sida la leeyahay dawlad goboleedka Puntland dawlad goboleedka Jubbaland hadii yani afkii micnaha u bartay waxaa jirta oo gobolada Soomaaliya kulamo isugu yimaadeen waliba aan jiraahdo maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir garoonka Koonis waxaa ka socda kubadda cagta kooxo badan baa ku tartamaya misleedahay marka inkastoo aan ku weydiin kooxda taageertay horta markuu horeyso kooxda jeclaan lahayd aniga waxaan taageero u ahay on taageero buuxda aan u ahay kooxda Banaadir